Coffee baby. Coffee baby saana ilmaha uga qoslisa. Aaminay husuusnaw arbacada habeenkii afar sac markay tahay ayno ahaatee aaminay husuusnaw amarkan ku faraiyo arbacadii doorashadii koonfur galbeed ilowde isniin miyaan ka dhigana buda ehedi asnin toona malnin sheegna sadasabta tumanishan ehed tumanili asnin tumitodaba tiraay tumisiyeed arbaa tumanisagaalana nin sheegi wariya waana arbaayu warnimayo doorashadan koonfur galbeed maalintii koowaad lagu ballamay arbacay ahayd maalintii labaad 28 arbacay ahayd maalintii saddexaad 5 bishana arbacay ahayd shalana waxa la isku qabsaday 12 aan ka dhigno iyo 19 aan ka dhigno waana laba maalmood arbaca ayaguna marka waxaan la yaabanahay bacadaan ma dawladda arbacaya u sheegtay masaayaka xaafad kale to arbacay leeyraada haysta ana gar arbaca lagu tilmaama inay tahay mid foolada waxaan maqli jiray arbaca bil u dambeys weelasha waa la daboolaa war abuu xuseen oo faara wuxuu yiri ma ogtahay adduunyada axad baa la taagay adigana isniin baa jacayl kugu abuurmay arbaca sidaadii aanan lay abaar marka cudurka arbacadu hadda ma bilaaban weligeed dad baa qabay aryaasiyada feebaraya farmaajo la doorta arbacay aheed amaad ogtihiin war ra'iisul wasaare Khayraba arbaca la magacaabay nimanyo war xukuumadda Khayraba arbaca la magacaabay lana ansixiyay anigu reer koonfur galbeed iyo dadyoga mucaaradka waxaan kula talin lahaa arbaca iyo nabad iyo nolol la tartaman ayaga iskale kulli man arbaca yawm salaam wal hayat arya arbaca hayat naxa isu keena hayat waa qande warnimiyo ani warsiin haaye baydawa maylare lama bagol oo iidin ay waa digligasi gudoomiyi liga kalsoonay ee baarlamaanka maday mursalna dahawi may baaray un iidinkii aaw shariif nin ku tabiyaniin rooga lankii iidamadaas iidin kala ka kordara uu si walaagi meeli ka dhiigaaday wari mas'uulidiyo aw eedin midoowna hadali usuuna ma eray iidanka bayda u lisheeni shakka wiima ka gobnaari erin gabalka oodana waraaba madaga tusihan dhigaagano teegan ari wasiirka warfaafinta ugaasasnowna may baaray iidanku uni dalbani ki reed bayda xaalad yeemay maro haytee waraa jira doone wiiska leehayeere waraa jira doone aroosaas baahina waxa waaye warkaaga ma yeele weeruxowga dhaafe warkaaga ma yeele war waxaan la yaabay axmed madow baydhabo maxaa ka galay warnimada horta doorashadan baydhabo waa lagu wareeray maalinba sidii dib loogu dhigayay mar horena anu waa idiin sheego waxaan idin doorasho degdeg oo lagu kala baxo haddaad rabtaan adaada geysta war aan hal tan adaada to mustaqbalka fadahaye ma una faala dhigdaan arbaaho baniin sheegona dabaka hana faalki faruurta weyn lahay fadila saarayo fadha war saas ma ahana Siciid Gacme wuxuu yiri falaartii hawada loo ganay uun ku filanayay halka ay ku fool leedahay foota dhiganayso fidna wadaha waa inay dishaafaalka baas dhigay war hada aniga dhageyso hogaasana ku daganteen daraatana ku siranteen maanta inaad ka durugtaan ma dareemi weydeen hadba daman idin dhigan naabkiinu soo dumay inaad dalaq tiraadaan badawacadiina ali sugulle wuxuu yiri faruur dhabatay hay ku filqtamin maxaa ku dhiman oo lagu dhahaa war waa dhamaade maxaa ku dhiman lagu dhahaa war waa dhamaade maxaa ku dhiman lagu dhahaa war waa dhamaade khiyaaray waxa la yiri baarlamaan buuq iyo khilaaf looga kala bayray waagii bariyana sii damqiya shacabka boogtiisa oo ruux beeniya waba iyo hoog bilaaye moosaw noo badbaadi bahe balaaye hadday moosta biyow baranka buura ka dheegay xaad u dhahdaan barjahaydan kale dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo ay ka baxeen xilligii wax laga maqli jiray warxumo tashiil way garteen dantooda nabad iyo nololna way ku noolaanayaan war gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal maanta dig soo yiri intoo maqnaana baarlamaanka buuq baa ka taagnaa xildhibaanaduna mucaarad iyo muxaafid sida ilmahooyada u timid ayay ka hortageen marka ama sidii laga filay ayuu noqon doonaa ama xaajada la isku hayo
ayuu hoos u eegi doonaa. warnimada xala waxaan daawaday madaxii kastamka dekedda muqdisho axmed cabdullaahi samow oo xaflad wasaaradda maaliyaddu qabatay ra'iisul wasaaruhu ku guddoonsiiyey shahaado sharaf wuxuuna ku mutaystaa leeyahay howlkarnimo iyo hufnaan iyo korarka dakhliga kadibna musuqa loo soo xiray oo xabsiga dhaxuu ku jiraa wasaaradda maaliyadda guddiga ku eedeeyey musuqana waa la kala diray iyagoon la baarin waxay sheegayaan run iyo been xaggee marka wax si ka yihiin miskiina miska la fuulale miyaa warni uragna way isgediyaa geelna waa galgashaa dadoo dhammina sanadkan miskiinu wada noqday ayaan lagugu darin samow inuu marna saxnaa marna qaldamay soo ma dhici karto guddiga maaliyadda la kala dirayba waxay sheegeen inay sax ahaayeen soo ma dhici karto adeerow anigu halo waxaan dhegaystay mustafa cagjar madaxweynaha soomaali state wuxuuna yidhi waxaa qasnugu wada dad kala jooga somalilan jubbaland iyo puntland muga waxaa la yaaba bahdi ilmalan kali goor qaskaad ay wadaan xow yahay mustafa cagjar maamul goboleedyada dawladda ka soo horjeeda miyuu sheegayaa war mustafa cagjar wuxuu yidhi mucaaradka madaxweyne farmaajo waan jeclahay dadka madaxweyne farmaajo ammaanana waa nacbaa uu yidhi sababtoo ah mucaaradka dhaliilaha ay ku tusayaan waa sax laakiin ammaanta waa ku dhuminaysaa uu yidhi war etoobiya maanta waddooyinka magaalada addis ababa waxaa laga taagaa layidhi calankii ONLF guddoomiyihii ONLF iyo wafdi uu watana waa lagu soo dhoweeyey marka halkaa isbeddel weyn ayaa ka muuqda wargeega may hadheegay langeli leeye buush inoo dhimidi hoba liyaarireed hasuus dheerahay dhiidi ani eedan mad bashiirsay imaaday mad maamawsay madi hata ka hor u sokowaay ma erni kasaasana buush welcome buy beese beelisal didyo lugu waaya kaari warnimada waxaan arkay buug uu qoray haaruun macruuf oo la yidhaha inside al-shabaab marka ninkaasi xog ogaal weeye taariikhda wuxuu ka soo bilowday shabaab markay bilowdeen ilaa hadda meeshay marayaan buu ku simay adiga naftaadu intaas haddaad ogeed xaad u qaraysaad hore ugu sheegi weyda war shabaab iyo daacish kalama aqaane shaqaalihii shirkadaha maalinba 4 baa laga dilaa marka shaqaalaha dawladdu waa murtadiin bay u dilayshan jireene kuwa shirkadaha maxaa loo daliishaday aryaa meeha dilaa laga rabay ee dilkaasaa loo daliishaday uryaada dadka waddanka tunuusiya waa soomaali baan u malaynayaa maalin dhawood waxaa tegey maxamed bin salmaan mudaxaraad bay kala hor tageen waxay idhaaheen dadyowga baxrayn iyo sacuudi iyo imaaraad iyo masar jooga way nala qabaan dhiig cabkaa xumaantiisa waysan oran karin annaga uga mas-uula waa madaxweyne ku-xigeenkii hore tunuusiya ayuu ahaa ninka yidhaahday madaxweynaha soomaaliya imaaraad baa isku day inay ridaan wareedhaha muslimiintii rooyinka ee miyamaar ay leynaysay weli alla xasuuqi waa ku socdaa baa laleeyahay waa ognahay maxaa ka qaban karta oo ma ka dhicisid tanyaan meelula neexaan ka dhicinaa wariya misaarmadi mooradii oodo mooro islaameed oo asa leeray may galaasan oo isla mooradan jini naga taa maalin kasaad tuf ha ku dishee